hadda waxaaba la helay gabdhaha aalaad lagu fasaadiyo ayadoo gurigeedii joogto xijaabkeedii qabto quraankeedii dhiganaysa ayaa guriga loogu soo galay waxa guriga ugu soo galay oo fitnaynahayo balaayaynahayo halaajinahayaa qasab looguma soo galin ayada lacagteeda ku soo iibsatay lacagteeda ku doonatay bal qof ka waran mididii lagu gowrici lahaa soo iibsanahay telefishonkii baa la soo xiray dishkii baa la soo saar youtube-kii baa la soo dhig loo furay facebook-kii aalad kaste wixii baa loo rakibay quraanka markay ka timid xagga iska fiirsay saas u taataabat saa waxa soo booday sun iyo qashin iyo qurun oo dhan haday maantii hore xishoodku ku jiray saasay indhaha leedahay maalmaha dambe laba indhood oo dheer saas ugu qaban maba ka milicsanaysa soo jeed wax alla wixii xumaanaha caadi la noqonahay shala markii hore mayna fiirsan karin indhaha way ka leexinaysa laakiin maanta waa caadi waxa la soo dhigay wiilal yar yar iyo dhalinyaro iyo balaayo iswata oo ayba taqaanaba jaamacadaha iyo iskuulada dhigta mid heesahaya iyo mid neekinahaya iyo mid erayo xun soo qorahaya iyo gabadh soo cadaysay iyo mid ma taqaana ay soo dhigtay markaas waxa la leeyahay adigu caanba ma tiide ma isoo caan bixisid waxaan TikTok la leeyahay oo la isticmaalo hadda 5 daqiiqo ayada dhan socotaa Soomaa wax 5 daqiiqo la socdo way qosol iyo shactiro way waxa la leeyahay waxa isku soo caan bixiya gabdhaha waa meesha ku soo caan bixi lahayd wiilashu ku soo caan bixi lahaayeen hees baa la saaran waa qofkii baa isruuxa haya heesna waa loo saaray gabadhii dugsiga iyo khayrkay wanaagga lagu ogaa waaba tan niikinaysa oo heesta u daaran tahay waaba tan ba isoo caan bixinayso adduunyada daafaheeda meel walba laga daawanayo qof isku soo caan bixinaya ilaahay caasintiisa bal ka war awna ka baqahay dhulkuna la go'o bal fiirso in la arkaan rabaa adduunka la iga bartaan rabaa inaan soo caan baxaan rabaa ma waxa isku soo caan bixinaysa ilaahaygi ku abuuray cisyaankiisa iyo caasintiisa miyaad ku soo caan baxaysa oo ku raadsanaysa sumcad ilaahay waxa laga yaabaa quraanka taqaan ilaahay inuu ka masaxo tawfiiqda iyo hidaayada ilaahay ka qaado adduunyadii oo dhan baa fitnaynaysa qof kasta oo ku daawada wuu dambaabay adiguna dambigu dambaabay qayb baa ku leedahay maxaa bulshada u jideynaysa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha xumaan qofkii jideeya dambigeedu leeyahay cid alla cidii uga dayato ku amal fashana dambigeedu leeyahay bal fiirso hal barba is soo dhigtay ado isruuxaysi imisa gabdhood baa fitnays oo dhaqanka noocaas aad barta imisa wiil baa kugu fitnoobay oo ku daawado ku arkay gabalku markuu dhacay ilaa saaka waagu uu bariyo lagu arkahayay lacnad ilaahay baa kugu dhaxaysay musiiba kugu socotay dambi baa lagu qorahayay waabaana samaysay ogow dhowr sano soconaya sawirkaas ama sanawaadiyo saas uu wareegahaya inta awsan tub ila rabbika ilaahaygi ku khalqay u tabadkay oo waxa noocaas ilaahay uga baq khatar baad ku jirtaa saa hadaa ku dhimatid dambigaagu waa socon inta kugu fidnoodo si faafisan dambigooda waa u sii socon adigana qof kasto dhaxlo ka dhaxla iyo qofka ka sii dhaxla dambi baa u soconay Soomaadan arag dad maanta dhageysanahaya heesihii dadkii dhintay 30 sano ka hor maxaa u soconay iyo dad dhageysanaya 30 sano ka hor quraanka taqaano dhimatay oo quraankoodu daaran yahay labadoodii dhulkay ka hooseeyaan lafahoodina waa baaliyoobeen qofna waxa u soconaya habeen iyo maalin dambi baa u soconaya idaacadihi buu uga soconaya mobiladii buu uga soconaya meel kasto uga soconaya hadii la yiraahdo hal amaano waxa lagu amaanaya gabadhaasi waxay ahayd gabar heesa ah oo fanaanad ah oo waqtigeedii qatar ahayd baa lagu amaanay cadaabki ilaahayna way ku jiisay oo ku mutaysat bal fiirso masaasa doonaysa inaad ku dhimatid oo ay kugu timaado oo xumaan laga dhaxlo
maanta waxaa laga rabaa hadaa halkaan fadhidid mobilkaaga heesaha ku jira ilaahay ugu dhawow oo kulli tirtir iridaa ka bixinina qofkii hees ugu jirto asagay rabbi baa isla og raqam sirri baa kugu xiran anagu ma ogin u fiirso adiga ilaahay baa isla og iridaa ka bixin galabtay adoo heesta kuugu jirta mobilkaaga tirtirin ka bixin maxaa u tirtiraysaa irdaa'an li rabbik ilaahaygi ku sharfa ina raali gelisid ilaahaygi ku nimceeyay ina raali gelisid darteed u tirtir ilaahayna uga toobad keen dadkii aad fasaadisay u sheeg ina ilaahay u toobad keentay maxay gaaladu ku jeclaysteen inay dumarka target ka dhigtaan waxay ku jeclaysteen inay quluubtoodu si sahal u leexanayso ogiin ضعفada ayaa target laga dhigtaa qodobka kale oo muhiimka waxa weeye gabdhuhu inay ogaadaan diinka ilaahay oo aad akhristay gorba kugu dambeysay quraan akhristay gorba kugu dambeysay adkaara akhrisid gorba kugu dambeysay salaad sunnah aad tukatid gorba kugu dambeysay isweydii adigu naftaada la og ilaahay xiriir la yeelo oo ilaahay kitaabka uu ku soo dajiyay oo dumarka uu ku sharfay iyo ragga intaba jaahilada ka noqon xuquuqda aad leedahay ilaahay uu ku siiyay quraanka kugu taala baro waa kasto ku bari hal bagna Allah ka dhiga quraanka akhri salaad sunnana tuko qadiyadaasi waa qadiyad muhiim in la ogaado qadaayaga kale oo dhiman aad u farabadan yihiin guurka rabna inaan ka hadalno iyo dhibaatooyinka uu leeyahay oo lagu arkay iyo dariiqa ugu sahlan iyo qadaaya ku saabsan waxyaalo kale oo akhlaaqiyadka ku saabsan laakiin waqtigeygu waa ciriiri intaana culimo kale waa joogan khayr badan Allah siiyo hal su'aal iyo laba su'aalood haddaan ku soo khulaasayno waliba waxaan isleeyahay xataa jaaniska haray ma badnee dumarka iyo culimada kale u daayo maalin kale iyo mawcid kale naloo sameeyo halkaan aan iskugu nimaadno qadaayaga kale oo taagan aan ka hadalno su'aalaha aan furno si gabdho badan uga faa'iideystaan sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in